subax wanaagsan dhammaantiinba dadka sharafta leh ee nagula jira barta internetka aniga oo Cabdulxaliim Ibraahim Rijaal waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijkii taxanaha ahaa ee aad nooga barateen bishiiba mar inaan ku wareysano qof kule xushmad iyo mudnaan iyo ixtiraamba kule bulshada Soomaaliyeed saaka waa saacada waa 8 subaxnimo hadda waxa ku sugan magaalada Nairobi xarunta safaaradda iyadana ku leenahay magaalada Nairobi Dr. Hawa Abdi iyo Dr. Deeqa Maxamed oo aad u taqaanaan oo u soo dagaalamay u soo maray meel aad u dhaadheer noloshoodana u soo khatar u geliyay meesha ay Soomaalida u gaarsiiyaan nolol wanaagsan inta aynan markaasi ku soo dhaweynin barnaamijkeenan Dr. Hawa Abdi iyo Dr. Deeqa Maxamed waxa aan idin haynaa video yar oo gaaban oo ka soo sameynay wax qabadkii ay soo qabatay Dr. Hawa Abdi ku soo dhawaada videohaasi My mother was dreaming that I will be a great person. I became a doctor because I wanted to save others from feeling the pain I felt when my mother died. The Somalia I grew up in was so much different than today. Mogadishu was the best place in all Africa. Life was very beautiful, very simple, and very peaceful. It started to go bad in 1988. When the government collapsed, more and more people come to us to escape the fighting. In time, my children became doctors, and now we work together. Today, our one-room clinic is a 400-bed hospital. One woman emerged as an island of hope, fighting off Islamist militants and restoring peace for nearly 100,000 of Somalia's most needy. She is Dr. Hawa Abdi, known in her village as Mama Hawa, who founded a free health clinic back in 1983. And when the Islamic militants, Al-Shabaab, recently banned international aid organizations from Somalia, her hospital became even more vital, and it grew into a life-saving refugee camp. Glamour magazine once described Abdi as equal parts Mother Teresa and Rambo, and she's been nominated even for a Nobel Peace Prize. So what is the biggest challenge working mother and daughter in such dangerous and sometimes scary situations? Yes, now my place is 90,000 people who is respecting each other, who is not fighting, but we try to stand our feet to do something, little thing we have for our people. What's the best part of working with your mother and the most challenging part for you? She's very tough. It's mostly challenging. She always expects us to do more. You see 300 patients, 20 surgery, and 90,000 people to manage. But you do it for good reason, Becky. Thank you. labaad waa aniga oo Cabdulxaliim Ibraahim Rijaal waxaan idinku soo dhaweynayaa stuudiyaha iyaga magaalada Washington Dr. Hawa Abdi waan ku soo dhaweeyay adiga iyo Dr. Deeqa Maxamed aad baad u mahadsantihiin sida sharafta leh ee nooga qaadeen inaad noo timaadaan saaka safaaraddeedan ku leenahay magaalada Nairobi soo dhawow Dr. Hawa program starting shortly. Yes. Ma ku soo celin kartaa su'aasha وان soo dhaweeyay Dr. Hawa Abdi iyo Dr. Deeqa Maxamed aad baad u mahadsantihiin sida sharafta leh ee nooga aqbasheen inaad maanta noogu timaadaan safaaraddeedan ku leenahay magaalada Nairobi dad aad u fara badan ayaa internetka nagula jira waxaan idinku soo dhaweynayaa mar labaad barnaamijka ku soo dhawow barnaamijka Dr. Hawa Abdi waa mahadsantahay waa ku soo dhawahay waxaan mahad mudan inuu fara badan oo Soomaaliya oo dibadda kala jiro inaan awood nala siiyo maanta opportunity aan u helnay aan ismaqalno aad baad u mahadsantahay Dr. Hawa Dr. Deeqana waan soo dhaweynayaa
waxaan filaya halkan waxa aan ku hayaa buuggii aad ii saxday maalintii aad Washington noogu timi buuggii aad qortay oo runtii aan aad ugu farxay aan akhriyay rajana aad u muujiyay dad aad u fara badan ay runtii ay ka helaan su'aashayda ugu horeysa Dr. Xaawo waxa weeyaan buuggan af Ingiriisi buu ku qoran yahay dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa adduunyada ku nool ama Soomaaliya gudaheeda oo aan afka Ingiriisiga aan aqoonin wali ma jirtaa in aad isku daydeen ama aad ku fikiraysaan aad ku rajo weyntihiin in buuggan af Soomaali lagu qoro sidaas way waan bedeli doonaa adoo ilaahay yiraahdo af Soomaali waan ku qori doonaa aad baad u mahadsantahay su'aashayda labaad Dr. Deeqa adna aad baan kuu soo dhaweynayaa waad mahadsantahay in si yaroo kooban waxaad nooga warantaa waxaan malaynayaa maandhawt waxaad ku maqnayd waxaad gaadhay wadankii waxaad tagtay meeshii aad ka bilowdeen Dr. Xaawo Cabdi Foundation iyo xeradii ay dadka bariga qaxootiga badan ay degan yihiin marka si yaroo kooban dadka naga maqlaya warbaahinta adduunyada oo dhan ma noo sheegi kartaa si yaroo kooban wixii aad kala kulantay iyo meesha ay maraysa hadda arrimihii waa mahadsantihiin intaan soo dhaweysan programkiina maanta hooyo seetiri Chinese weyn waa Soomaaliya isku maqasho especially hadda gadaashana waxaa fadhiya youthkii Nairobi joogtay dhalinyaradina I don't know different countries inay dhalinyarada ku jirto ma tegin ma booqanin kaamka waan deganahay markaan wax soo aaday in hooyo aan soo kaxeeyay meelahan markaan imaadan soo baxamanay waa dhex deganahay Soomaaliya and it's my home gurigeyga waana jeclahay waa ku fara isbedel weyn ah socdo bariyahan meesha waa ka maqnayn muddo 6 bilood markii dagaal jiray oo ciidankii dawladda iyo ciidamadii kale iska soo horjeeda dagaalamay hadda dagaalkii uu dhamaaday alxamdulillah dadkii meesha way ku noqonayaan iskuulka waa furan yahay isbitaalka waa furan yahay so waxa waaye new xilli cusub aan galnay Soomaaliya oo dhan ay gashay oon ku faraxsanahay inuuna dagaal jirin oonan xabad aan maqlaynin oo jidkii iyo ganacsigii iyo wixii dhan ay kala socdaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waana ku faraxsanahay inaan nolosheena bilaawno isbitaalkii dhaawac weyn soo gaaray dhinacii dagaalka markuu jiray haddana waa dayactiran qayb ku sameynaa qaybaha dhiman dhalinyaro badan oo iskoolka waa furan yahay ardaydii way imaanaysaa alxamdulillah laboratory diagnostic shaqadii way socotaa 2 bilood ka horna waxaa noo imaadeen volunteer gabar oo Ingiriiska noogu timid Soomaalida Ingiriiska joogtona la volunteer gareysay mid kalena end of the year aan sugeynaa so we are welcoming also diaspora inay imaadaan opportunity-ga isticmaalaan ee arkaan wadankooda waxa laga haayo effortna ku daraan shaqada aad baad u mahadsantihiin Dr. Xaawo Cabdi iyo Dr. Deeqa waxa aad taabatay meel aad u muhiim ah oo tacliintana hadda sida aad la socotaan waxa bilaabantay olole loogu talagalay ciyaalka ardayda Soomaaliyeed ama carruurta Soomaaliyeed in iskuulada lagu celiyo in ku dhow waxaan malaynayaa ilaa 1 milyan oo arday oo ka bilaabantay deegaanada Soomaaliya oo dhan ama ha noqoto bartamaha iyo caasimadda ha noqoto magaala madaxda ama ha noqoto Puntland ama Somaliland kaasoo loogu talagalay oo loo bixiyay Go to School Initiative ama aada iskuulada waxaase shalay toole warka aan ku helay oo aan ku maqalay inay jiraan dad ka soo horjeeda arrintaasi oo ku sheegaya inay tahay tacliin ay dadka reer galbeedka ay wataan oo ciyaal iskuul imika 20 sano 22 sano ugu dambeeyay generation dan ama facdan ay meesha ka baxeen marka Dr. Xaawo Cabdi markii aad bilaabaysay clinican ama aad bilaabaysay meesha daryeelka caafimaadka ah 80-yadii bay ahayd marna ma tiri maalmaha ka mid ah ay iskuuladaas meeshaas ay noqon doontaa meel aad ku soo dhaweysid 9,000 oo qof oo aad u dhiibtid tacliin aad ku siisid ama ay noqoto inaad siisid daryeel caafimaad maya weligay kuma aanan fikiraynin waqtigaas maxaa dhacay dawlad wanaagsan oo isku rakiban oo xoog laban markaas Soomaaliya markaas waxay ahayd East Africa dawladda ugu xoog badan uguna wanaagsan uguna hore ka sameysay mana islaam weligeeday way burburi doontaa maba islaam madaxayga weli kuma soo dhicin waqtigaas simply waxaan bilaabi rabnay anagoo group badan ah in mataqaanaayay adduunka warshadaha leh aan ka daba tagno oo mataqaanaayay beero iyo xoolo iyo digaag iyo lo iyo waxaas aan xanaanayno oo aan hore u kac u sameeyno xagga cunnada iyo xagga warshadaha alahaasaan markaan bilaabayna saasay ahayd dad badan oo baadiyaha degan ma ayna soo gaarin magaalada
habeenyadii markay islaamaha fooshaan baabuurna aysan haysanin gaari dambeer waqtiga intuu soo wado magaalada keenaya ayaaba maxay ku qaadanaysaa cunugii bannaanka soo baxaaba asoon qofna la jirin assist garayso marka baadiyahan ugu soo dhawaaday si ay dhaqsigii ugu soo gaaraan laakiin isma lahayn disasterkana dhici doona weligayna ma ku fikirin waxaan filayaa doctor xaawo cabdi waxaa buuga ku qoran inaad caawisay in ka badan 9,000 oo qof laakiin waxaan filayaa intaa in ka badan inay nolosheeda aad ku saamaysay oo aad daryeel caafimaad iyo meel ay ku soo qaxaan iyo meel ay cunto ku helaanba iyadoo ay markaa meeshu aad u adag tahay noloshuna ay aad u adag tahay waxa kale oo rabaa dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee hadda ku sugan safaaradda xarunta safaaradda magaalada Nairobi qaybta Soomaaliya iyaga laftooda haddii ay su'aalo hayaan waxaan u maleynayaa su'aalaha iyaga laftooda way ku weydiin doonaan oo way u furan tahay iyaduna madashu way u furan tahay su'aal halkan waxay nagula jira qof magaciisa la yiraahdo Thomas oo ka soo jooga magaalada waxaan u maleynayaa Paris waddanka France buu jooga su'aashiisu waxay ahayd yaa hamiga yaa kugu geliyay markii ugu horeysay ma jira qof taariikhda intaad akhriday aad istiri dhakhtarnimadiisa aad ku dayatid ama waxqabadkiisa yuha qofkii ku geliyay maxaan ku yiraahdaa himadii inaad wax ku baratay oo aad ku noqotay dhakhtarad cudurrada la xiriira caafimaadka dumarka ama gynecologist-ka wadcigii iyo noloshii waqtigaas jirtay ayaa igu dhalisay laakiin qof aan ku dayday ma ayna joogin waqtigaas maxaa dhacay dawladba ma ahaynba gumaysi maan waqtigaas ku jirnay aan ka bix markii aan gumaysiga ka baxnaba anigu waan baxay 60kii baan ka baxnay gumaysiga 64tiina waxaan aaday Soviet Union meeshii la dhihi jiray marka anigu yar ayaa hooyaday xanuunsatay dhakhtar wax u qabto ayaan waayay iyadoo ku dhibaatootay xagga uurka kuna dhimatay dhalmadii markaas baan aad xanuun u badan dareemay aan go'aansaday inaan mataqaanaa soo barto ogaada hooyaday maxay u dhimatay ana ka ilaaliyaa dhibaatooyinka kale caruurta aniga ila midka ee xanuunka aniga aan dareemay inay dareemaan markaan doctor soo noqdo aan caawinaa hooyooyinka waad maasantay doctor xaawo cabdi su'aashu waxay ku socotaa doctor deeqa maxamed oo waxaan u malaynayaa adiga laftaadu markay doctor xaawo cabdi ka soo qalin jabisay lixdameeyadii inkastoo waqti dheer ay u dhaxaysay adiga iyo walaasha inaad idinkuna u baxdeen tacliin aad markaa ku tagteen dhulkii oo isbedelay oo markii hore Soviet Union ahaan jiray laakiin markii dambe noqday dawladda imika Russia loo yaqaano marka ma waxa taasi aad kugu dhalisay tacliinta ay hooyo ka soo qaadatay waddankaasi mise waqtigaas scholarship ku furnaa oo kaliya ayay ahayd arintu I think arinta bi'ada ahayd se hooyo sheegaysa aniga markaan yaray aniga ma rabin inaan dhakhtar noqdo dagaalkii markaan arkay oo qixii iyo 91kii iyo sida ugu baahan tahay caawinaadii dhaawaca tirada badan leh iyo waxaasoo dhan anoo yaraan bartay inaan wax dhaliyo anoo dhakhtar xataa ahayn because waa loo baahnaa muhiimadda qof wax dhaliya ma lahayn marka bi'adii aan ku dhex jiray dhibaatadii annagana go'aansanay inaan dhakhtar noqono Soviet Union waxayna ahayd waqtigaas Russia ahayd annaga 94kii 5kii Russia markaan tegaynay waxay ahayd waddanka kaliya scholarship u furan oo medical school laga heli karo qof Soomaali wax ku soo bartay ama qof backgroundkiisa oo Soomaali ah oo passport Soomaali wato aad u adkeed adduunweynaha xilligaas in la tago bilowgii 90yadii oo dadkii dhan waa qaxayeen marka iyadana waxay ahayd circumstances oo waqtigaas jiray oo aan ku helnay opportunity Russia aadaysa markii hooyo tiraniga waa ka naxay Russia adduunka Soomaaliya markaa maqlays baahida iyo safka iyo barafka iyo waxa ka fikiraysa so but alhamdulillah it's shaped wayna habaysay dadnimo naga soo saartay waan mahadsantihiin su'aasha oo ah la xiriirta xagga tacliinta lafteeda waayo tacliintu waxa weeyaan ololaha hadda socda oo ah aada iskuulada ayaa waxa weeyaan ardayda Soomaaliyeed ama dhalinta Soomaaliyeed ee ka weecinaya xoog wax qabsiga iyo dagaalada ka fogeynaya marka ilmuhu wax barto kaamka marka iskuulku imisa ayuu hadda u yahay imisa class weeyaan imisa arday baa dhigata sida u soo aragtay ma noo sharxi kartaa iskuulka intuu dagaalka dhicin claashka 6 bilood aan ka maqnayn waxaan ahayn 850 caruur aan ku haynay iskuulka hadda dagaalkii markuu dhacay dadka ay soo laabanayeen maanta waa ilaa 310 300 kor u kaca maalin walba hadda iskuulka la furay bishan kaliya socda
initiative oo go to school kana initiative oo muhiim ah waayo Soomaaliya dhan muhiim u ah in dadka ka soo horjeedana ma success gareynayaan meelna ma gaarayaan oo xilli yar iyo wax yar marka resistance waa in loo yeeshaa waa in la wadaa hoosh fiicneed barka muhiim waa cilmiga diinta islaamka ku baarayso qofka islaamka nabigeena kaleey salaatu salaam qaayad ugu horeysa ku soo degtay wax akhriye ahayd wax bare ahayd waana loo sameeyay in wax la barto waxbarashada basic waa hadaan wax baran dhibaatada maanta ma haysato waxbarasho la'aan waaye iskuulkeena waa kora waxaan leenahay galaaska koowaad ilaa galaaska 8aad librarian hadda furnay galaaska 8aad caruurta markay ka soo baxdo waxaan hob gareynaynaa sanadka soo socda inaan u furno secondary school iyo initiative programs oo skills ay ku bartaan caruurta markay grade 8 ku dhameeyaan skillna haystaan ama ay high school sii wadan karaan ama ay ku shaqaysan karaan dhibaatada wadanka taagan oo soo shaqo la'aan way part time but we focusing in high school ko sii wataan waxbarashadoodii ay halkaas ka sii wataan I think generation ka hadda jira dhibka hay generation kayga inkastoo anagu dagaal hortiisa aan anagu Soomaaliya waxaan ku soo kornay heeso badan oo wadani ahay iyo arday baan ahay waxaan wax soo baranayo waxa waaye hooyada iyo waalidka iyo wadankayga moogta yani waxa ka maqan wadanimadii iyo jaceylka waxbarashada iyo hooyo markay raashin oo dirtido soo dhib badan oo qaxar badan every minute ana soo codhay jirtay wadankiina idin baahan ha seexanina qawowga ha sugina wadankii dadka idin baahan soo muhiim waay waalidkii inay ilmahooda ku dhiirigeliyaan inay wax u baranayaan yihiin naftooda iyo wadankooda iyo dadkooda waad mahadsantihiin su-aasha labaad waxa weeyaan ma leedihiin organizationkiina ama foundationka Dr. Xaawa Cabdi Foundation waa mu'asasad non-profit ah ama samafal u baxday su-aasha waxa weeyaan ma leedihiin wax connection ama xiriir ma leedihiin organizationada kale ee ka shaqeeya wadanada dariska ee Soomaaliya ku dhow muhiim ah tar organization kaliya ma shaqeyn karo special organization kan crisis ka ku jiro anaga marka hore waxaan ahayn field work muhiimadeena iyo shaqadeena dhan waxay ahayd si dadka loo caawin so materialki accesski iyo caawinaad iyo hay'ado kale aan ka helin hay'adii ground ku jooga xiligaas oo Soomaaliya jooga sida ICRC sida WFP World Food Program UNICEF all of them xiligi bilawga ay jirtay Soomaaliya wana caawin jireen material wise ahayd financial ma ahayn because Soomaaliya alaab ahaan iyo raashinki iyo bustayaashii iyo dadkii waxay wax karsanayeen wadan as last since 2010 hay'adeena Mareykanka ka register gareynay Kenya laga register gareeyay this last 3 years anaga bilawnayna anaga own aan u sameeyno fundraising community gaan la hadalno oo financially because waxaan ogaanay muhiimka kaliimaan in fiirka laga shaqeeyo structure administration waa inaan leedahay shaqada qabanaysid waa inaan leedahay how to channel adduunka u la socdaa inay Soomaaliya only disaster ahayn oo dependent country ahayn also Soomaaliya ay tahay wadan oo self sustain noqon karo wadan dad shaqaysanaya ay ku jiraan so our goal is hay'adeen u register galayno international lagu dhignay is to showcase Soomaalida dhinaca adduunka inaan ka arkin inaan ka tusno oo dhinacii ahay dadka wili inay nool yihiin ay survive gareynayaan oo wadanka wili uu hope leeyahay so that's why hay'adeena modelkeedu yahay keeping hope alive waa run weeyaan rajadana lagama quusto ayaa la yidhi taasna waa arrin muhiima weeyaan Dr. Xaawa Cabdi waxaan malinayaa buugga markaan akhriyay su-aashaana dhowr qof baa ku weydiiyey oo ahayd markii dagaalada aadka u xumi ka socdeen dagaaladii sokeeye Soomaaliya ee ay naftaada khatar ku gashay adiga iyo gabdhahaaga iyo reerkaaga oo dhan adkaysi aad u weyn oo qofka bani aadamkii aanu xitaa qaadan karin ayaad soo martay su-aasha aan isweydiiyey ama dadku inta badan markay buugga akhriyaan isweydiinayaan baa waxay tahay adigoo ka bixi karaya Soomaaliya oo lacag samayn karaya oo noloshaada meesha doontida ama Yurub ama Mareykanka ka degi karaya weli waxay dadku isweydiiyaan maxaa Dr. Xaawa Cabdi muxuu ahaa pointka ama noqdada ku kaliftay inay Soomaaliya u adkaysato oo ay dhexda u xidhato oo ay joogto iyadoo ay khatar kala kulantay waxa wanaagsan inay sii weydiiyaan intee qof bayn nafsadooda wax u qabatay oo mahdiyay oo dawladdu aad waqtigaas 23 sano ayaan qaran matalayay 23 sano qaran matalayay maxaa dhacay qofkii dhibaato ku dhacdo waa ii iimaanaysay waxaan isku dayayay inaan qaboojiyo wixii markaas aan u kari karana inaan siiyo wax kasta dhibaato kasta oo Soomaaliya ka dhacday waan u joogay ee dad badan aan wax u taray
maxaa dhacay dadka intii soo baxday ma ahayn intii aan heli karin mataqaanaa wax miinis ay ku soo baxda aanan heli karin Soomaaliya ku hareen dadkaas waxay u baahnaayeen qof inteerada albaabaha u furto tiraado suka xataa maskax ahaan u dajiso oo mataqaanaa dhiirigeliso inay sii noolaadaan maxaa dhacay qof la arko waa dhimanaysaa adduunka inta la joogo waqtigeeda waa dhimanaynaa intii xoolo oo adduunka joogto dhan dhimashay marayaan annagana waa noo imaanaysaa ama haddaan ka orodno ama haddaan la joogno waa qof wixii dhintaana marka dadka saas isweydiinayo ma kama warqabaan hadda marka habeen horaata waxaa la sameynayay halkan waxaa lagu sameynayay Nairobi Somali Investment Summit markaasaan waxaa maqlaay gurubkan wuxuu ka yimid Puntland baa hadlaysa haye Somaliland baa hadlaysa haye South Somali baa hadlaysa waan yaabay maxaa dhacay kulligood aniga kaamkaygay ku jiraan waxayna leeyihiin gaaran degnay waxbaan haysanaa dadkeena waan xafidanay Soomaali waa mid waa hal oday waa hal sinji waa hal diin inay iscafiyaan islana joogaan wax ugu wanaagsan mar saasaan leeyahay waa ruwaya taas waa muhiim weeyaan wadankuna taas ku badbaadaya dad fara badan ay taa aamineen su-aasha labaad baa waxay tahay marka adiga oo waxaan u malaynayaa 2004 2003 dib uma xasuusta laakiin buug ay ku qoran tahay koox hubaysan inta ku yimaadeen oo rabi inay meesha xoog ku qaataan oo qolooyinkan ama mitidsan ama xagga diinta ku mitidsan ay ahaayeen adiguna soo istaagtay oo aad tiri ama anigay dila inta aydan dilin dadka bukaankayga meesha jooga su-aasha markay dadku runtii maqlaan iyadoo ay dad badan ay marka ka naxaan mashaakilka meesha ka taagan markaas oo qofkii qori haystaa uu xoog wax ku xukumayay marnaba markaa maalinta ma isweydiisay in noloshaadu khatar ku jirto adiga oo qolooyinkaasi hor istaagay Dr. Xaawa Cabdi Xaliimo anigu waa noolahay haddaan noolahayna waxaan jeclahay wixii aan anigu haysto inay badbaadaan iyo waxa aan anigu mas'uulka ka oo dhan markii waxaan anigu mas'uulka aniga iga soo doontay mataqaanaa badbaado ama magangeliyo haddii hortayda lagu dilo waxaa ka wanaagsan inaad iska dhimato hortood oo adba arkin ba calool xumadaas iyo xanuunkaas aniga mabda'aasaan qabaa waan xasuustaa mar doctor adiga iyo doctor deeqa ladin wareysanayay TV-da Mareykanka oo su'aasha la weydiiyay oo markii dambe xitaa markii ay ku yiraahdeen qoladii waad ka bixi kartaa hadda aad ka dalbatay inay diibaan apology ama ay yiraahdaan raali naga ahaw marka runtii dad fara badan baa dhinacna ku qoslay dhinacna way la yaabeen yani xooga aad muujisay markaasi iyo niyad samid aad muujisay waqtigaasi oo qof walba oo noloshiisa u baqayo sax way maxaa dhacay ayaga naftirkooda ma ahayn dad cilmi dheer leh caruurta aniga meesha ii joogto iyo kuwa Soomaaliya jooga caruurtayda way ka tirsanaayeen laakiin si kale loo jaheeyay ahaayeen marka waxay inaan baro qofka markay gafto inay waajib ku tahay inay raali gelin bixiso sida caadada Soomaaliyeed ay ku dareersatayna waad ogtahay Soomaaliya waxay fariisataa geed hoostiis waa la kala qaataa garbaa la qabtaa qoftii gardarada la saarana xil bay dhiibtaa xaal bay dhiibtaa ama odayaashu way banish gareeyaan marka waxaan rabay caadada Soomaaliyeed inay iloobin midda adduunkan ay la socdaan wayna soo dhiibeen runtii waa maasanta Dr. Xaawa Cabdi su-aasha ku xigtay waxa weeyaan Dr. Xaawa Cabdi Foundation oo ah non-profit organization waxaa jira organizationo fara badan oo ka howlgala wadanka gudihiisa waliba qaybta caafimaadka iyo tacliintuna ay aad ugu fiican tahay inay la iska caawiyo ma jirtaa inaad la leedihiin wax xiriira organizationada Soomaaliya gudaheeda ka howlgala ama ha noqoto deegaanada kala duwan ee Soomaaliya gudaheeda waa la leenahay waxaa la leenahay Amoud Foundation oo Soomaaliya aad u fangareyso meelo kala duwan fangareyso waxaan la shaqeynay mar oo na soo martay Himilo Foundation la dhahayo oo Canada iyadana joogto local NGO-yada waa soo shaqeynaa haddii ay group ahaan shabeellada hoose ama wax caafimaad waxaas noo kugu soo dhiibay iyo kuwa internationalka aan kuu soo sheegay MSF 3 sano inala shaqeynaysa isbitaalkeena joogtay oo Soomaaliya joogtay inkastoo hadda Soomaaliya ka wada baxday and so it's a different NGOs mar walba groupkii noo yimaado waa la shaqeynaa groupyo badanaa la shaqeynaa oo aan isla qabanaa hawsha but the closest partner waxaan isla nahay Amoud Foundation oo hadda noo renovate gareeyay ceelkii markaa meesha ku noqonaynay oo nala dhiseen oo nala habeeyeen dib u habeyntii iyo dib u dejintii wax ka qaateen so waa very close oo waxaan nahay co-workers
waad mahadsantihiin doctor xaawe cabdi iyo doctor deeqa maxamed barnaamijkayga weli wuu socdaa dadka weli kusoo kordhaya internetka barta internetka ee daafaha adduunka kala jooga waxaan leenahay maanta waxaa sharaf noo ah inaan ku wareysanayno xarunta safaaradda iyada magaalada Nairobi doctor xaawe cabdi iyo doctor deeqa maxamed su'aal baa halkan ku socota doctor xaawe cabdi oo ah dad fara badan baa aqoon aanay lahayn sheegta wixii laga bilaabo ilaa 19 markii dawladdu burburtay taa maxaad ka oran lahayd dadka shahaadooyinka iska soo qaatay ee doctorada isku sheegay engineerada isku sheegay su'aashaasi halkan ay noogu jirtaa taasi waxay u taalaa Soomaaliya oo dhan waxaan u sheegayaa Soomaaliya haddii ayaga inta imaadaan dadka dibadda jiro ay dalka bedelin ay wax ka qabanin dalkaas wuxuu noqon doonaa mid lumay idinkana halkiina aad joogtiin caruurtiina kuwa ay sii dhalaan kuwa saddexaadna way Soomaalinimada way dhaafi doonaan oo dad kale sheegan doonaan marka dambe maxaa dhacay cunuga meesha uu ku dhashay waa inuu ku faanaa dalkiisa oo wanaagsan oo meesha ugu wanaagsaneed adduunyada ku taala Soomaaliya haddaadan hadda dawlad almeeno dawladay hadda leedahay oo dalka dhexdiisa laga dhisay dawladda laakiin waxba ma qaban karto hadda waxba ma qaban karto haddaan annaga wax la qabanin oo kulligaan inta tagno oo isku ururno aan si wanaagsan u samaysan wax soo saarka badinin beeraha tabcin xoolaha dhaqaalaynin ilmaha aan wax barin maxaa dhacay ilmaha 12% waxay u dhintaan malnutrition in Soomaaliya cunno xumay u dhintaan bas waarun weey jira aan la garan karin laakiin Soomaaliya ilmaha 12% waxay u dhimanayaan cunno la'aan waarun weey doctor xaawe cabdi waa nafaqa daradaasi waxay dadku aad ugu dhinteen oo runtii adiga laftaadu aad kaamkaaga ka hadashay in badan dokumentiyo badanna aad samaysay cali jaamac jiraac oo ku nool magaalada London UK ayaa wuxuu ku weydiinayaa waxa ugu dambeysay buu yiri jaamacaddii Gahayr ee Muqdisho ku taalay 1984 marka halkay maraysaa haddii aad war u haysaan dokumentiyadii iyo sida u dhisnayd jaamacadda habkeedii ayuu su'aashaasi soo weydiiyey way adag tahay in description loogu sameeyo over the maxaa telefoonka ama skype-ka ama programkan but I wish inuu one time uu fasax intuu soo helo arki lahay jaamacaddii Gahayr way taagan tahay wixii ka haray buildingka laakiin waa camp waa qaxootiga ku jira one of the largest refugee camp oo Banaadir region ku yaala waaye dawladda support garaysa dhinaca waxaa ka degan oo dhinacii kalaasyada lagu qaadan jiray waxaa degan Unisom iyo Amazon dhinacii kale oo ahay Muqdisho iyo Gahayr iyo jaamacadda Soomaaliya labadiba waa meel qaxooti iskugu tageen ee noqotay so picture oo beautiful maahan I cannot describe but asagay u taala hadduu 84 xasuusto hadda waa inuu yimaada oo reconstructionka iyo dhinaca ka qaata shaqada adeeg sugaysaa dee su'aashaasi waa su'aal si fiican aad uga jawaabteen mar labaad waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijka kooxda xiriirka elektrooniga oo aad ka heli doontaan barnaamijkan hadhowto YouTube-ka ama warbaahinta bulshada dhinaca su'aasha oo ah teknolojiyada oo hadda inoo sahishay ama waqtiina siisay inaan ku wada hadalno idinkoo Nairobi jooga waqtigiina uu maray hadda 3:00 casarnimo annagana ay 8 subaxnimo tahay daafaha adduunkana ilaa Australia meel walbana ay dadku computerkooda iyo guryahooda iska jooga ay inaga dalbanayaan taasi waa muhiim maxaad leedihiin dhinaca teknolojiyada aad ka qaban kar lahaydeen haddii ay noqoto ardayda Soomaalida ama ha noqoto ku sugan xerooyinka qaxootiga ama ha noqdaan iskuulada ama ha noqdaan jaamacadahaba sidee aad u aragtaan teknolojiyada maanta in loo gaarsiin karo wadan dagaal u sokeeyo ka dhacay burbura laakiin hadda ay rajo muuqato oo ay dawlad cusub ka bilaabantay waxay ila tahay marka hore ilmihii dhimanaya 1% waa in cunno loo sameeyaa first step waa cunno food hay'adaha adduunka waxayna soo badbaadinayeen inta naga hartay oo cunno siinayeen oo noo imaanayeen oo noo ogaanayeen dawada siinayeen sida ICRC oo kale sida WFP oo kale waan u mahad celinayaa ayagana intii waqtiga crisis-ka ahay ay nala jireen ay naga tagin technology it's tool oo waxa waaye marna ku baabi'in karo marna ku hagaajin karo waa sida loo isticmaalo believe me warkii ugu horeysa hadda xamar aan tegay aan internet aan raadiyay coffee shop aan internetka u buuxay and every
qof walba oo dhalinyaro oo Soomaali oo internet cafegas fadhiyo Facebook ku jira. I was very surprised waa aadan ula yaabay yani how ay ugu jiraan internetka active u yihiin Facebook dhalinyarada Soomaali joogto xamar joogto qof walba Facebook u leeyahay. So haddii technologies si oo important loo isticmaalo oo la baro inay research ka sameeyaan ay wax ka bartaan oo interaction laga sameeyo programyadan oo kale wadanka la geeyo oo cilmi ku fadhiyo si hooyo uga hadlaysa raashinka kaleeto dad aqoon u leh sida nutritional programyada aqoon u leh sida beeraha loo habeen lahaa Soomaaliya beeraha yaqaan agriculture-ki wax dibadda ku maqan iyo wax dhintay noqdeen beerihi iyo drought resistant geedii ahay oo xamili karay si wax loo abuuraa iyo si biyaha loo save gareeya iyo haddii programyadaas interest lagu sameyn lahaa oo dhalinyarada la bari lahaa inay isticmaalaan technology-da in a right way wax weyn ay noqon lahayd and every single person kan eriga ilaalinaya xataa telefoon u haystaa hormuud everywhere ay taagan tahay qofka rabtaa la hadli kartaa oo text gareyn kartaan technology Soomaaliya dadku waxay u maleeyaan inay ka dambayso way ka horeysaa dhinaca Mareykanka mararka qaarkood markii telefoonkaada lacag ugu diraysaa lacag ma wadatid Soomaaliya telefoonka maanta waa boorsadaadii lacagta ku shubanaysa ilaa 300-500 dollar qofka rabtaa u tuuraysaa waxa ku gadanaysaa dukaan walba maalin nin tusbax gadayo jidka maraa intaan istaajino VVC qawaayir isoo tuura lacagteedii waa ninkii tusbaxa gacanta ku hay suuqa dhexdiisa ku gaday so technology unbelievable Soomaali heerkii gaartay Mareykan ma gaarin Mareykan waa inay tagtaa oo lacagta cash ka soo baxsataa ama kaarkaada ku isticmaashaa so horumaray gaartay Soomaaliya technology and I hope inay dhinaca fiican u isticmaalo oo waa runtaa weeyaan taa markii ugu horeysay aan gaaray sanadkii 2011 Somaliland ayaan arkay runtii waxaan la yaabay bay ahayd oo iga yaabiyay in teknolojiyada inta leeg ay dadku lacag isugu diri karaan telefoonada halkan cali oo lana joogay wuxuu kugu mahad celiyo aan kugu raacsanahay buu yiri sidaad uga jawaabtay su'aashaasi markii hore tiri inaad wadanka timaadid weeyna wuxuu kugu yiri waan imaanaya buu ku yiri wadankii waan ku soo laabanayaa si uu ogaado meesha ay gahayr iyo jaamacadii ay marayso mar labaad waxaan filayaa haddii ay dadka dhalinyarta ku sugan safaaraddu way u furan tahay inay ka soo qayb qaataan madashani oo ay Dr. Xaawa Cabdi iyo Dr. Deeqab Maxamed ba weydiiyaan su'aalaha ay rabaan inay weydiiyaan iyaga laftooda way soo dhawaan karaan su'aashooda meesha magacooda iyo su'aasha way weydiin karaan inay waqtiga iyagu ay rabaan su'aashayda labaad ayaa waxa ay tahay Dr. waa su'aal aniga iga socoto weeyaan oo iska kaftana Dr. Xaawa Cabdi iyo Dr. Deeqab Maxamed mar walba way wada socdaan mar walba waa waxbay wada qabtaan laakiin Dr. Aamina ma aragno oo mar raba inaan reerka isku diro waa iga kafta weeyaan Dr. waxaan jeclaan lahayn iyada lafteeda inaanu mar iyadana wareysano waayo iyada lafteeduna kaalin bay ku leedahay meesha aad ka soo qabateen iyo waxyaabaha aad ka soo qabateen wadanka iyo meesha aad taagan tihiin waxa aan filayaa su'aalihii wali waan sugaynaa laakiin dhalinyarta ku sugan safaaraddu way ku soo dhawaan karaan hadday rabaan inay su'aal weydiiyaan Dr. Deeqa iyo Dr. Xaawa Cabdi ama ku saabsan shaqada ay soo qabteen ama foundation-kooda safaradii ay soo mareen waxyaabaha ay soo arkeen khibrad aad u dheer weeyaan inta in markaa su'aalaha ay dhalinyartu hadday rabaan ay diyaarinayaan su'aashayda labaad waxa weeyaan dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo daafaha adduunka ku nool ayaa runtii markan Facebook-iina aan soo galo oo kale ama su'aalahan la soo weydiinay ama wax ka qorno waxa ay yiraahdaan meelaha qaarkood ayaad ku badan tihiin safaradiina sida Mareykanka iyo Europe laakiin xagga South East Asia iyo Australia iyo Soomaalida dhulka ku nool ma gaadhaan marka taa maxad ka oran lahayd Dr. Deeqa iyo Dr. Xaawa Cabdi wallahi wixii la casuum anaga welcome on ay meesha and we just learning hadda waxaan baranaynaa inaan limit gareyno safarkeena because waqtigu ka qaadana oo shaqada qaba lahayd badana Australia this year when casuumeen waa hob gareynayna inaan u tagno but we thought waxaan fikirnay inaan xilli ka fiican aan tagi karno planina jiro marka welcome aan South Asia National ka casuumayo هذا welcome ونسوا دويننا أن هندي أنا الكعزومي January Somalina ما عزومين لكن organization كلنا عزومتي so that will be first trip on Asia كتجين إن شاء الله in January so we're coming there مال دار مجرنا صوص عنا waad mahadsantihiin su-aasha Dr. Xaawa Cabdi khibrad aad u dheer ayaad ku leedahay
caafimaadka dhakhtarad baa tahay ku takhasustay cudurrada gynecologiska ama haddii aan qaldo wada sixi doontahay cudurrada ku khaaska ah dumarka ma jirtaa iskuuladii neersanka lagu baranayay Soomaaliya way burburtay burbur weyn baa soo gaadhay wax idinka dalbaday ama idinka codsaday inaad ka caawisaan waxbarashada ama inaad tacliinta iyo waxbarashadiinii aad sii gudbisaan oo ay dadka aad gaadhsiisaan wax badanaa jira oo yimaado oo aan waxna barno oon barneers ka dhigno isbitaalkeena ka shaqeeyo on the job training la yiraahdo codsi badan uu noo imaadaa we tried one time in a nursing waa isku daynay in a nursing school furno but the capacity iyo wuxuu u baahan yahay dhakhaatiir badan iyo shaqo badan marka waxaan rajaynaynaa hadda Soomaaliya hadday stabilize garayso isbitaalkeena inuu teaching center noqdo oo institutionada kala jira aan la shaqeyno because uma baahnin inaan mid cusub furno waxaan u baahanahay inaan practice-kii u noqono oo jaamacadii wax dhigayay quality-gooda aan improve gareyno oo jaamacadaha hadda jiro aan dhahno annaga practice-kii aan bixinayna iyo aqoontii idinkana waxaa bixinaysin theory-da isla shaqeyno waan rajaynaynaa so insha allah waddanka stability-giisa ku xiran tahay iyo ability-geena waa run weeye taas waad macsan tahay doctor deeqa su-aasha cali ka socotay waxa weeyaan da'da lagu bilaabo iskuullada waa imise weeyaan Soomaaliya ardayda waliba caruurta iskuullada markay gelayaan I think caruurta waxay ku different way waa kala duwan tahay hadda grade 1 ka marka aragtid waxaan haynaa grade 1 oo caruurta waaweynada iskugu geyno 10 jirka iyo 14 jir iyo 15 jir oo grade 1 iyo qaar 6 jir iyo 5 jir oo grade 1 marka by age-kooda u kala qaybinaa iyagoo isla grade 1 isku leeyahay so comfortable se u noqdaan wixii waaweynba meelaha iskugu geyna grade 3 waxaa arkaysaa nin weyn oo 8 sano meelahaas jiro oo 18 sano 14 sano jiro marka we try waxaan isku daynaa our best inayna ka xishoonin aqoonta wixii isku da ahaan isku qol gelinaa wixii oo da'da yaryarna isku qol kaleetaan gelinaa so haddana program oo insha allah adult teaching aan rabnaa inaan barno iyo caruur badan oo 20 sano jiro waxna baranin opportunity aan helina jiro marka muhiim waaye da walba waa la helaa every age isa adiga u encourage garaysi isa iskoolka ugu soo gelisay dhibaato xuna ka taagan in different area iskoolaadka Soomaaliya oo cunug iyo waaweynta inta la dhaho 6 bilood waxa leeyahay iskoola ku dhameynaysa waxa 6 bilood I don't think so grade 1 ilaa high school in lagu dhameyn karo waxun inta la soo barbaraa shahaado la iska soo siinaa so taasna waxay ku xiran tahay su'aashii hadaayan inaan ka jawaabaan rabay government-iyo ku xiran tahay dawladda ku xiran tahay dawladda kaliya control karto quality control dadka shahaadooyinka sheeganay iyo dadka iskoolaadka oo see rabaan wax u dhigay iyo iyada control karto dawladda iyo wasaaradda waxbarashada oo la dhisay waa inay soo sameysaa standard iyo policy oo wax lagu bartay iyo lagu raaco so I hope inay sameyn doonaan shaqadan inay ku badan tahay oga teeda kale dhalinyarada Nairobi joogto waxay mic ma haysanay dhahayaan su-aasheena haddaan weydiino inaa maqli doonto uma maleynayo su-aalaha rabaa inay weydiiyaan ha may ku soo dhawaada waan soo dhaweynaynaa dhalinyarta ku nool magaalada Nairobi su-aashooda way weydiin karaan haddii qofka markaan dadka loogu soo celin karo si aan u gudbino dadka nagula jira internetka waan u gudbinaynaa iyagana su-aashaasi si loo ogaado su-aasha idin weydiiyeen waad mahadsantihiin way soo dhawaanayaan marka hello Abdi Hafid Abdi Halim waad mahadsantihiin may maqashaa waan ku maqlayaa si fiican baan kuu maqlayaa okay waa Xasan oo ka socda Nairobi dhalinyarada Nairobi marka ugu horeysa waan ku salaamay adiga iyo the two doctors who are seated with us here marka anigoo aga faa'iideynay maybe dad ajnabi oo agagaarkeena fadhiya waxaan jeclaan lahay laba su'aal inaan ku weydiiyo Ingiriis mid anigoo weydiin doona Dr. Hawo Maamo Hawo iyo weydiin doona Dr. Deeqo marka first waxaan ku bilaabayaa maadaama aan rabin aan aga faa'iideeyo in fact waxaan ognahay the two doctors who are seated with us haddana la jooga meeshan they are doctors who are inspiring and amazing waan ognahay arrimo badan ay Soomaalidu soo qabteen marka anigoo ku bilaabay Dr. Hawa my question goes this way doctor maybe what motivated you to be the kind of person you are today secondly waxaan rabay inaan wareysto Dr. Deeqo waan ognahay arrimo la koobi karin ay soo qabteen Soomaalida dhalinyaradeedii ama dhalinyaradeeni ha joogeena Soomaaliya Beat South Central Somalia Puntland ama Somaliland sida ay gadda ka dhawaajinayaan waan ognahay buugaagtaan akhrisanay
marka su-aasha ayaan rabay inaan weydiiyo Dr. Deqo waxaa waaye have you ever done youth exchange program ma u qabateen dhalinyaradii thank you very much waad mahadsantahay xasan su-aashaada laba su-aalood oo muhiima weliba ta youth exchange-ku aad bay muhiim u tahay dhalinyartuna waxa weeye mustaqbalka waddanka labada su-aalood markaa doctor xaawa kusoo dhawow su-aasha ugu horeysa yaa kugu dhiirigeliyey inaad noqotid qofka aad maanta tahay iyo meesha aad maanta taagan tahay xaaladii waqtigaas jirtay iyo nature-ku ilaahay ii sameeyey ayaa igu qasbay waqtigii situation-ki waxay ahayd mamaadi waxay ahayd necessity is mother of the invention correct so yeah baahidii waqtigaas jirtay ugu qasabtay inaan waxaa sameeyo ka tallaabsan waayo qof Soomaali oo ii baahan oo morally iyo materially iyo mataqaana in hadal ma xataa la yiraahdo u baahan waan ka soo tallaabsan kari waan iska bixi kari waan inta gadaal fiiriyo waan ka tagi kari waan shakhsiyadeydu iyo ogolaan kari waystaas waxaana ahay qofka ugu faraxa badan Soomaaliya maxaa dhacay qof markaad wax u qabato oo aad kasto inaad wax u qaban karto ee qoftii faraxdo oo qoftii wax ama aad u badbaadis xagga caafimaad ilaahay wax badbaadiyo aad u dadaasho ama xagga mataqaanayay nolosheeda aad wax ka qabato waa ku farxaysaa jaa waxaad arkaysaa inaad adiga tahay ilaahay waa kula jira powerful inaad tahay powerkaada dareemaysaa markaas dhalinta exchange-ga loo sameeyahay waa sameynaa sanadkiiba hal mar isbitaalada Soomaaliya oo dhan aan isku wacnaa annaga iyo Amuud Foundation umbisa Soomaaliya ka ah inta kale waxay yihiin qolo gaar ah Amuud Foundation iyo annaga Soomaaliya nahay sax ah isbitaalada Soomaaliya ku yaalo dhananka waxaan ka wacnaa 4 ama 3 qof ama ayaga boorama isugu geynaa sanadkii hadda soo dhaafnay boorama isugu geynay midkaan soo socdana waxaan isugu keenaynaa isbitaalkeena laakiin wax badanaa loo baahan yahay in laga qabto Soomaaliya si la iskugu daro waxaan rabaa dadka dibadda jooga oo maanta aan isla soconno inay Soomaaliya wax qabtaan dawladda inay wax la qabtaan inay dadku wax u qabtaan ayagana inay wax isu qabtaan maxaa dhahay ayaga hadday dibadda jiraan saraha dheer iyo nabadda quruxsan ay ku istiraexayaan ayaga dadaa samaystay and they can do also themselves inta yimaadeen waa inay dalkooda quruxsadaan ay nabad ka hirgeliyaan oo jidadka waaweyn iyo nalalka iyo saraha kor fuula samaystaan si ilmahooda powerful u noqdaan proud. And youth exchange program is very essential waaye muhiim waaye shaqadeena goobka dhana dhalinyarada wado dhalinyarada ku xiran and every time I travel garay mar walba aan soo safarno aan meelaha u tago dhalinyarada waxaan ka codsadaa inay noo imaadaan internship waa u furan tahay inay walaalahood iyo dhalinyarada Soomaaliya joogta experience la qaybsadaan inay u sheegaan nolosha adduunka see tahay oo ilmaha aynan badda isku shubin oo ay tahriib galin oo in isbaabi'inin oo yacni reality ay u sheegaan which is the key oo muhiimadda ay tahay in isdhaafsadaan aqoonta iyo aqoonta siday muhiim u tahay ay ogaadaan hadda saan ku sheegay this summer first exchange aan UK ka helnay and we hope in another exchange in the end of the year UK noogu imaadan oo youth so it's essential every aspect oo shaqadeena dhalinyara muhiim 14 dhalinyara hadda technology Canada fadhiyaan Mareykan ay joogaan way nala shaqeynayeen volunteer-keen waa dadkii doonarada la hadlay waa dadkii thank you letter ka qoray waa dadkii dadaalay waa so dhalinyaro muhiim waa inay involvement ku noqoto they might not be ani hooya mar walba hadlayna saa sheegtay but dad kala behind jiro shaqadii wado oo meesha loogu soo tagay sida walaashay Aamina Amal and she's a mother hooyo waa iyadan caruurtii haysa iyadoo production company waa عرفتي حواعد family بدنيسا شقدنا وهيسا so there's huge an opportunity and huge محلها people دانيارة وبدن وهي ولا شقدنا لا أنت ذو حوم قبلهن so it's very important and we're willing to have قفكي open idea how to have better and exchange youth it's not just a talk youth conference هذا اللي مالش كل ما ذي لسبارتي socialization معهن and action aan jecelna anaga every time oo la meet garay hooyo programyada sheegtay plan of action ala sameeyaa and you have to implement so it's muhiim waa wixii laga hadla in la implement garay it's not just mar walba
22 years of Somali mar walba shirayso hadlaysa oo aan action la sameyn. So action is the key. Yeah. Okay, Abdulhalim, maybe if you can hear me once again, waxaan ognahay charity begins at home sidee takhaatiirta ka dhawaajiyeen waana ognahay arrimihii Soomaaliya kasoo qabteen gudaha Soomaaliya waa arrin la taaban kara waayo isu keenay dadka ka yimaadeen South Central Somalia, either Puntland ama Somaliland ama the entire Mogadishu waan ognahay laakiin waxaan rabay mar labaad maybe idinkoo raalli way haddii aan igu batay waxaan weydiin lahay takhaatiirta hadda halkan fadhiyaan waa muhiim inay arrimahaas laga qabto Soomaaliya gudaheeda wayna qabteen laakiin plankooda ma ku jirta maybe inay dalka kasoo baxaan Kenya ha imaadeen ama Uganda ama Ethiopia si ay dhalinyarada maaragtay maadaama dhalinyarada Soomaali waxaan sidaan ognahay most of the time waxa waaye arrimo maaragtay waxa affect grade maybe the wars and the counter wars sidaan ognahay marka in their plan or in their journey ma ku jirta maybe inay dhalinyarada soo wadaan Kenya ay keenaan Ethiopia ama Uganda so that ay ogaadaan how dhalinyaradan kale Uganda ama wadamadan kale joogaan aan sheegay sidii arrimoodu qabtaan so that maybe once they go back home ayagana aga faa'iideeyaan in terms of the culture perspective. Thank you. Yeah. Xasan waa run weeyaan su-aasha intaanay ku noqon Dr. Xaawo iyo Dr. Deeqa cali baa su-aal idin soo weydiiyey wuxuu idinku yidhi habka care plan ee aad ka isticmaashaan ma ku jiraan dad waaweyn iyo curyaamiinta su-aashaasi waxaan filayaa care plan wax la yidhaha baad isticmaashaan organizationkiina su-aashaana waxaad ku dari doontaa su-aasha uu xasan idin weydiiyey kusoo dhawaada حسن سؤال ويدي is a very key important ومهم إن dhalinyarada meel alla meeshay joogaan oo maxaa la dhahay exchange loo sameeyo but logistic marka shaqadan bilaadeed iyo wareegga iyo waxaa ogaanaysaa waxyaabo badan oo xasan ogeen which means logistic and time waqtigii iyo preparationkii iyo financialkii waxyaabo badan ay imaanayo I like in dhalinyarada Uganda ama Ethiopia ama Kenya joogtina imaado aan ugu faa'iideeyo but marna waqtiga ugu yar marna financial aan u awoodin because mar walba you have to make a choice yani inta heshay ma wadanka dad baahana gelisaa mase wadanka dibadiisa so it's a lot of complication ajiro but hadday welcome na dhahaan youthka meel walba joogaan organizationada waa u imaanayna waana la qaybsanaynaa ayakana waxayna la qaybsanayaan ideadooda I have different ideas all the youth oo Soomaali waxaan rabaa inay Soomaali yimaadaan ay wax ka qabtaan banaanka loo tagi that's a good idea ay maadaan Soomaali come to us waa muhiim weeyaan su-aasha waad mahadsan tihiin xasanna su-aasha wayna weydiiyey su-aal aad u muhiima weeyaan dhalinyartu waa mustaqbalka waxaa jiray noqdad hore aad taabatay Dr. Xaawo oo aad tiri in dadku la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya waa muhiim weeyaan waxaan filayaa shalay toole inaad daawanayseen shirweynihii lagu sameeyey Belgium ee deeqda loo ururinayay Soomaaliya oo runtii ay noqotay madaxweynuhuna uu ka hadlay Xasan Sheekh Maxamuud oo uu yidhi uma malaynayo inay mushkilad weyn ama caqabad ka imaanayso international community-ga ama beesha caalamka haddii aanay mushkilad ka iman ummadda Soomaaliyeed uu ku berbaaray uu ku booriyay ummadda Soomaaliyeed in ay wada shaqeeyaan oo ay farkufiiqa iska daayaan oo ay wax wada qabsadaan oo dawladda garab galaan taasina waa muhiim weeyaan oo shalay toole aynu dhammaan u wada jeednay waxaan filayaa dadka weli dhalinyarta Nairobi jooga haddii ay su'aalo wadaan waxay noo haray ilaa 12 daqiiqadood baa inoo haray barnaamijka su'aalahooda ay rabaan inay weydiiyaan fursad bay u haystaan maanta inay Dr. Deeqa iyo Dr. Xaawo Cabdi ay dhex fadhiyaan marka su'aalahooda iyaguna soo dhiibtaan ciddii su'aal u baahan عبد الحليم وقت سلام مركو هره وسلامات marka horta aad waxa uu faraxsanahay maama Xaawo Cabdi Bilaabe tooreesadeeda qaaliga ah tooreeso deeqo iyo tooreeso aamino iga maqan aan salaamaya day maqlayso 114 ku salaamaya aadan ugu faraxsanahay maanta maamadeyda kulankeeda waana ognahay aniga xataa goobjoog waxaan ka ahay tooreesada waxyaabo badan iyo dib badan ay soo martay oo aniga aan meesha goobjoog ka ahay iyo weerar badan xataa ayada lagu soo weeraray nafsadeeda sida wanaagsan ay u difaacday dadkeeda iyo dalkeeda iyo qarankeeda aad ugu waxaan filayaa in barta internetka xoogaa inay cillad yar inaga dhacday oo ay yara go'day
way soo laabatay hadda waad mahadsantihiin su-aasha isbitaalka macnaha sidii qof oo macnaha shakhsi weeraray camal horta loola dhaqmay oo loola dagaalamay burbur xooganaa soo gaaray aan ogaa markii ugu dambeysay doorashada waxaan weydiinayaa isbitaalka sidii hore ma ku soo celisay maadaama oo si xun loo burburiyey oo isha qalabkii iyo macalaleerarka xataa sidii cadow camal loola dagaalo laga burburiyey oo ani aa ogaa sidii cadow camal loola dagaaltamay alxamdulilah hadda iyadii waa noo shaween caafimaad qabtaa in badana qarankeeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda iyo waxeedana way soo difaacday hadda isbitaalkii ma ku soo noqday shaqadiisii sidii hore oo ahaan jiray aan ku ogay walaagiisii shaqadii ma u kala socdaa toorada saasaa aan weydi lahay tooreso deeqana aad iyo aada u salaamaya isbitaalka shaqadiisii waa kusoo naqday wuu shaqeeyaa hadday ugu yaraato maalintii 200 patient uu fiiriyaa marka waxaa ciriiri ku jira mararka qaarkood dawadii dadkii ma gadan karaan markii aad u qorto aad free ku fiirisay ama aad free ku seexisay isbitaalkii adigana lacag uma haysid dawadii aad usoo gadi leed ayagana ma gadan karaan warqad inta u dhigtay farmasi ma kasoo qaadan karaan maxaa dhahay 23 sano ayaa qof shaqaysa jirin Soomaaliya 23 sano oo u dhiganta 13 qarni rafaadka ay Soomaalida ismaray rafaadka iyo dhibka ay isla mareen bini aadamnimada ka baxsan ay isku sameeyeen Soomaaliya waxaan rajaynayaa inay mar dambe saas isugu noqon oo aqligooda hadda ka bacdi deeqo ay ogaadaan inay meelna kala tegaynin oo la isu soo noqonayo garteenana geedaha hoostoodan ku qaadan doonaa oo qofkii gardarana la garsaari xil laga qaadi doonaa ama la banashgareyn doonaa laakiin waa inay dalka horta dhisaan oo meel la iskugu imaan karo oo geed hoostiis inta la fariisto gar lagu kala qaadan karo ay ka dhigaan marka hore ayagoo wada jiro su-aasha waxyaraan rabay inaan ku daro walaashii waa ku mahadsan tahay starkii fully functioning waa sidiisa ku shaqeynaya uu kusoo noqday hadda ina su-aalaa la weydiiyey inaan keerkan oo ku jiro dadka waayeelada iyo dadka curyaanka ah keerka Soomaaliya haddaa dhakhtar tahay qof walbaa ku jiro discrimination ma jirto because starkii keliya free aan nahay all kind of waxaan fiirinaa oo patient qof curyaan qof waayeel qof dhalinyaro maalina xasuustaa I want to share a small story I know inuu waqtiga nagu yaryahay 5-6 islaano iyo dhiig kar qabi odayaal ay maadeen qolan wada seexinay oo hool ahay naaga timid markaas qof wuxuu yiri yaaqay qolka iska qasaarinaysin kuwan ku guriga lagu qoran saari jiray oo la dhihi jiray ha iska dhinta lagu sugi jiray Soomaaliya waxay leedahay bad habit oo qofka waayeelka lama daaweeyo guriga lagu haya so it's very important to an issue jiro waayo dhaqaatiirta Soomaaliya aan la qaybsado in dadka waayeelada la daaweeyo oo care la siiyo oo maatantii waad mahadsantihiin su-aal aada u fiican bay ahayd su-aal baa kasoo dhex baxday halkaasi oo ah doctor Xaawe Cabdi daawooyinka iyo daawo la-aanta hadda se maandhaweyto waxaa soo baxay report laga qoray Soomaaliya oo meelo badan oo deegaanada Soomaaliya ah oo laga sheekeynayay daawooyin dhacay in Soomaaliya la keeno ama daawooyin aan tayaba lahaynba oo taasna ay ka khatarsan tahay cudurka laftiisa markaa doctor Xaawe Cabdi iyo doctor Deeqa maxaad ka odhan lahaydeen arrintaasi Soomaaliya u taala maxaa dhacay anaga kaliya waxba kama qaban intaan qaban karin soo qabanay hadda dad mataqaana beec mushtar oo ayaga aan damba ka lahayn dadkooda iyo dalkooda anaga waxba kama qaban karin saas Soomaaliya oo dhan hadday isu tagto ay wax ka qaban kartaa oo honest la noqdo oo patriotic la noqdo markaas wax laga qaban karaa waarun weeyaan wacyigelinta waa muhiim weeyaan in barta internetka lagu qoro in qofku uu ka hadlo in raadiyaha iyo telefishinka dadka loo sheego mashaakilka ay keeni karto daawooyinka oo khatar ka keeni kara qofka xanuunkiisaba khatar ka noqon karo qofka uu ku dhiman karo waxa kale oo iyaduna jirta nin dhalinyaro maalin dhaweyto oo aan email isweydaarsanay ayaa wuxuu yidhi Soomaaliya daawooyin dhaco kaliya ta lama keenay buu yidhi laakiin fikrado dhacay baa xitaa Soomaaliya hadda la keenay buu yidhi oo ah arrimahan argagixisada ama ha noqoto arrimaha xagjirnimada iyo diinta qaladka loo tarjumtay marka runtii halkudhigaasan aad iyo aad ula yaabay oo ah maaha cunto dhacday iyo dawo dhacday kaliya fikrad dhacday lafteeduna imika inayna soo gaadhay ayaa lagu soo daray waad mahadsantihiin su-aasha sidaad uga jawaabteen waxaan filayaa weli su-aalihii way noo furan yihiin dhalinyarta ku sugan safaaradda haddii ay su-aal u qabaan doctor Xaawe Cabdi iyo doctor Deeqa way kusoo dhawaan karaan microfonka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي عبد الحميد وأنا والله دكتور ماوينك يقبلنا وأنا سلامي سؤال عن ويدين لنا جعلنا تكون صحاوي سنة كأوري شقاً يهوشن أي بلابين كبلابين محلي وطن كصوماليا جارهان مقدشو بدأ لبعض ويدين هنا أيضا وحي هيك مليهين وعنا أما كنت في الجلسة حر أيقون إيمان محلي وطن كجديد أما مالك الإيمان أيقون ماشي الجوجا فكرة أحان لا قيبسن كرو أما محلها أحان لا قيبسن كرو ميت صدحات أيضا ويدين لها وحيت هاي هذه وقت ونوصل محو isbitaalka dadka dhan miyuu daawayaan maamooyinka iyo hooyooyinka u khaas u yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu I think howsha hooyo waxay bilowday 1983 website aan leenahay informationkii historyga meesha ka ogaan kartaa website-keena nagala soo xiriiri kartaa hadda aysan sheegay team dhan oo dhalinyaraa jirto oo kaaga jawaabayso programka rabta sameynayso insha allah waxaan isku rajaynaynaa inaan ku darno website-ka meel qof walba hadduu rabo volunteer ama uu specifically u tegi karo uu kala xiriiri karo maxaa dhahay isbitaalkeena markii hore waxaa loo furo hooyooyinka badbaadinta hooyooyinka laakiin dhibaato ahaan iyo dagaalkii burburkiisi waa ku qasbanaan inaan wax walba sameyno 2007 ilaa 2010 waxaan weyneynay dhinacii caruurta waxaan leenahay caruurta meel lagu qaabilo waxaan leenahay meel oo lagu qaabilo daayari waxa dhahay cholera outbreak hadduu dhaco oo every age leh dadka waaweyn aan leenahay emergency aan leenahay iyo 2 qaliin so isbitaalka waa general maternal hospital but mainly waxa ku focus gareen child care hooyooyinkii caruurta laakiin naga raali ahaada waxaan barta internetka xiriirkii ayaa naga go'ay hadda laakiin waa soo laabtay barnaamijka runtii barnaamij aad u xiiso badan weeyaan saacad gudaheedna u malayn maayo inaynu ku kala boganayno taariikh dheer oo ay doctor xaawo cabdi iyo doctor deeqa maxamed ay ka dhigeen waddanka gudihiisa 2 dhakhtar oo ku takhasusay cudurrada dumarka waxyaabo aad waaweyn ka soo qabtay waddanka gudihiisa marka inta aanan barnaamijka aanan soo dhammaystirin doctor xaawo cabdi iyo doctor deeqa doctor xaawo cabdi ku soo horeyso kelmadii ugu dambeysay doctor xaawo cabdi ku soo dhawow waad mahadsan tahay waxaan la hadlayaa walaalahay Soomaaliyeed oo aan maanta ismaqnayno dadkana si opportunity-ga maanta aan ismaqalnana waan u mahad celinayaa ayagana waan u mahad celinayaa waxaan ku sugayaa Soomaaliya sidaan u bedeli lahayn oo adduunka oo la simi lahayn maxaa dhacay dadka dawladda joogo waa bini aadan anagana bini aadanana waxay sameeyeen oo dhan waa sameey karnaa nabadda keenayaan keeni karnaa dhismaha quruxda badan lay sameeyaan sameey karnaa kala dambeynta iyo sharcigan adkeyn karnaa marka muhiim waxa kala dambeynta iyo sharciga dalka in loo soo celiyo mataqaanaa wax soo saarkii iyo raashinkii wax soo saarkii in loo badiyo ilmihii iyo dadkii oo dhan gaajay u dhamaanayaan adinkana waa dadaasheen oo intaas markaad dibadda joogtiin waa nala socoteen oo dad unbaa qofba qoysku mataqaanaa oo masuufaa qofsi mataqaanaa calool xumo iyo dhibaato tabanaysana la raali geliyo laakiin meel aan horta fariisan karno oon geedaha hoostooda garta ku kala qaadan karno dalkii inaan gaarsiino waay waad mahadsantahay doctor xaawo cabdi doctor deeqa kusoo dhawow kelmadii ugu dambeysay hooya wax walba jiray aniga waxa keliya aan ku dari lahaa waxaa waay dhalinyarada maanta jirta inaan la hadlo oo aan dhaho waa inaan futureka caruurteena wax u diyaarinaa hooya ii diyaarisay platform ay samaysay professionkii ay bartay hawshan qabalaha ay guide garaysay so it's very important waa anaga dhalinyaro haddaan nahay waddanka maanta anaga iskale waa inaan wax ka qabanaa waa inaan istaajinaa waa inaan ismaqalnaa waa inaan caruurteena u diyaarinaa next generation waa inaan anaga u diyaarinaa haddaan u diyaari weyna next generation sida anaga u dhumaysaa waxa anaga la kulanay iyo ka darana in la kulanta laga yaabo waad mahadsantahay doctor xaawo cabdi doctor deeqa maxamed iyo dhalinyarta ku sugan safaaradayada magaalada Nairobi barnaamijkayga oo intaa ku dhan mar labaad waan idin mahad celinaynaa sida sharafta leh ee aad noo soo ka soo qayb gashay barnaamijka waad mahadsantiin This program has been brought to you by Kinex.